halkan waxaan ku duubayaa taariikhdii janankii Morgan 88kii uu ku lahaa waqooyiga isagoo xukuma taariikhdiisii dagaalka ayaan halkan doonayaa inaan wax yar ka iftiimiyo. waxay ahayd markii taliska guud ee Hargeysa oo uu fadhiyo gurigii fooqa ahaa iyo saraakiishiisii oo dhamina ay la fadhido ayuu dagaalku ka bilaabay xagga galbeed aan ka soo galay dabeed ciidankii oo soo kacay oo hoostiisa yaacaya markuu arkay ayuu yidhi wallaahi waa kuwa yaacaya. markaasaa dabeed saraakiishina yaacday, salaankii uu ka degi lahaa baa buuxsamay. dabeed wuu hayn waayo daaqaduu iska tuuray, gacanta bidix ayuu ka murkacday, laamayguu cararay. taliya bay yidhaaheen saraakiishii oo gacanta intay qabteen ayay israaceen iyagoo ordaya oo ciidankii dhex cararaya. aqalka uu ku jiro Cabdilaahi Darawal imika uu ku jiro oo laga rarayo gaari qabaala ayaa saraakiish yidhaahdeen taliya kan fuul. carruurtii intii uu saaray ayuu iska dhex fadhiistay oo dabeedna gaarigii sidii buu kula dhaqaaqay. wuxuu ka wareejiyey birjeex dushiisa, waddadaasuu mariyey shimbirta, wuxuu ka saaray dabada cadaadda 24aadna iyo warshada kabidana wuxuu ka maray xagga koonfureed. ina qarboosh buu ka booday waddada xalig iyo cadaadda xalig iyo u dhaxaysa airportka ayuu ninkaasi galay habeenkaa. 24 saacadood baa qaybtii 26aad wax amara iyo wax shaqaynaya laga waayay. orodku ninkaasi maalintaa dhigay wuxuu kula baxay magac aan qarsoonayn. cabdi bila tuubay saraakiishii uu la ordayay u bixisay. magaca markuu la baxay ee halkaa markiiba ay ku dhajiyeen 24 saacadood kadib ayuu raggii ninkii gaariga waday sarkaalkii gaariga xaaskiisa ku guray intuu soo diray ayuu yidhi dhulkii ka warkeen. kiibaa ku noqday oo dabeed intuu gaari kaxaystay oo dabeedna meeshii kasoo kaxeeyey xaaskii iyo isagii. xamar markuu tegey ayaa la yidhi isaga oo la yidhaahdo cabdi bila tuub ayaa la yidhi ina maxamed siyaad barru ayuu qabaayo ninkii soo qaada waa la xidhayaa ha odhanina. ninkii sidaa ahaa waxaan maqlay oo duubistan igu kaliftay in uu tukarad isagoo ciidan wata soo galay dabeedna la dhaawacay oo uu sayloon ku socday Nairobi isagoo yaalla. waxaan leeyahay talow haddaanu dhimanin dagaal dambe muu soo noqon balaneegno. isaga halkaasaan ku dhaafay. cabdiweli cali gaas waxaan leeyahay cabdiwalow galgala ciidanka ku jira ee ah al-shabaab maad la dagaalantid intaad dagaal Soomaaliyeed iclaaminayso adiga oo dagaal jacayl u galay inaad samayso jeegaantaasoo aad isku xidhay
puntland iyo jubbaland waa jeegaantii ugu horreysay ee lagu dhawaaqo haddaba jeegaantaasi wax weyn oo waxyaalaha bay kuu geysatay halkaad isaga dhigi lahayd soomaali weyn nin xukuma ayaad jeegaan samaysay iyadoo galgalo lagaa haystana aad ku soo duulaysaa walaaladaa oon waxba ku yeelin taladaadu halkay ku dambayso waynu arki doonaa isaga intaasaan kaga baxaya midna waxaan leeyahay farmaajo maalintii labada nin ee labada xildhibaan guryahooda lagu rasaaseeyey qiiqii ku haleeyey ayaad istiri weji kale samee ood ku baxdo waxaad soo dirtay wasiirkii qorshaynta waxaad u soo dhiibtay jalfis yar baad u soo dhiibto isna wuxuu la soo galay oo jalfistii uu ku qarxiyey tukarad dhibaatadii ka dhacday markaad maqashay markiiba waad ka daba timi waxaad timi garowey shirkaad gasheen adiyo isaga iyo ninkii la odhan jiray cabdiweli caligaas wuxuu noqday arrintu imika way naga kala daadsantaye iska noqo qorshaad ka tagtay waxay noqotay inaanad noqonin dee aada tusto dadka wejiyo puntland baad soo martay deegaanadeedii gaalkacyana waad sii martay bahashii la odhan jiray dhuusamareebna waad sii martay heshiis baad qabanqaabisay aan caga ku taagnayn iminkana kala daadsan noqodkaad noqotay dadkuunbaad soo jeedisay hadduu ahaa mid aada marayso dhulka oo qorshahaw kaa ah oonu ahayn kaa tukaraqeed buurdhu baad soo mari lahayd oo waxaad soo mari lahayd baydhabo oo waxaad soo mari lahayd jubbaland oo dhulkao dhan baad soo mari lahayd oo sida dhulka loo maraabaad u soo wada mari lahayd ee markay kugu soo xidhantay unbaad hoosiis dadka uga dhigtay inaad beerahan iyo meerahan marmarayso nin soo booqday baad iska dhigtay laakiin kamarad baa kugu xidhnayd waxay noqotay siyaasaddaadii mid dhasho tollaaya reer hebelaay puntland iyo cabdiweli caligaasna waa soomaaliya haddaanay soomaaliya ahayn adigu magac kale u bixi dhuusamareebi hadday baydhabi tahay baydhaba iyo jubbaland hadday yihiin soomaaliya puntlandna waa soomaaliya haddaanay ahaynna adigu magac u bixi adeerow waxaan ku leeyahay siyaasaddaadii waxay noqotay tollaayaa daaroodaay waxa docda ka dilaacday oo lana filayn jirinna horena u dhicin deg iyo daaroodoo loo kala baxo mana soo qabanaysid halkay maanta marayso ma soo qabanaysid hadday aada qaba istidhaana dirkii laga raray soomaaliya adeerkaa ku takaburay waa kuwa degan baari maxaa geeye baari
وما يدلني محاجي من جسته أرحمي أودتشي أرحم لأنتي بعد أدنى كنتي لكن وحنا مرينا حدان ما أنت دور شده كنت شفتين هذا الصبح أن تحرعه إن لو صادرين بس هو مالي اللي سنته وايو وحولي فراولة وحولي مشرح لماذا يديوان كنوضي مركي أن أركي إن قعمش الشيء كتير ماشي kuwaasoo markiiba kamaradu ay qabanaysay ninka la soo saaraya inuu adiga yahay shishaayana wado dadka qaar baa waxay ku sheekaystaan waxa loo soo diray farmaajo inuu u aaro maraykankii lagu laayay xamar iyo Itoobiyadii la galay ee adeerkii galay inuu isagu u hiidiyo ayaa loo soo diray qaar baa ku sheekaysay dadka wixii la sheegabana waxba ka jira waxaan leeyahay wajiga aad Somaliland ku soo qaaday ee aad ka dambayso adigu waxa kaaga wanaagsan nimanka xamar gudaheeda kula xukuma inaad wax ka qabato haddaad Soomaali doon tahay dayaanay baleeg inanta maxaayada haysata minashiibiyadu markay lacagta ka qaado cashuurta al-shabaabna way daba socdaan oo way ka qaadaan ka dukaankana markay ka qaada ay ka qaado local government-ka xamar markuu ka qaado ayay yana ka qaadaan ilaa iyo ninka taajirka u sareeya bay ka qaadaan adna waad ka qaadaa iyana way ka qaadaan balse midaanad kaba qaadin adigu ayay iyagu ka qaadaan waa hay'adaha ayay nin uga qaadaan nin bay uga qaadaan iyagaa ka sheekeeya markay ka tagaan dhulka markay xamar ka yimaadaan ee caalamka kala marayaan bay ka sheekeeyaan wixii ka helay halkaa waxaan leeyahay war waa adiga ku jira xerada militariga ee UNISOM ku ilaaliso waddankii aad xukumaysay adigoo halkaa kaga jiro lagu ilaaliyo maxaa kugu kalifay inaad Somaliland oo walaaladaaya wajiga ku soo jeediso waxa loo arkaa taasi inay ka tahay Soomaaliya isu imanayeen cadaawad kala dhaxdhig labadan cadaawad kala dhaxdhig waayo ma jiro dhul la qabsanaya adna cid ma qabsan kartid Somaliland ma cidaan meesheeda mooyo meel kale ma qabsan karto nin kalena meel kale intuu ku duulo ma qabsan karo waxaan leeyahay farmaajo siyaasaddaadii dir iyo daarood bay gaadhay halkay ku dambayso aan eegno ka dishay labadii madaxweyne hore waxa ka badan intii adigu aad joogtay inta la dilay dagaalka isaga waxa aad meel kale uga iclaaminayso waxa kaaga wanaagsan adigu oo halkaa wax ka qabta tollaydana ka daaya dadka iyo qaylada yeedhaysa ee Somaliland dhexdeeda aad ka bilowday waxaan ku leeyahay tala ahaan waxaan ku siinayaa haddaad doonayso ummadda Soomaaliyeed inay Soomaali noqoto afku ku xanuuni maayo waxaad tiraahdaa waanu ixtiraafnay Somaliland markaad tiraahdo Somaliland way iska degi Soomaaliland way iska digiyo dad walaalo isdhaxmaray noqon say waligeed baahay imika la tahay
adigu taa lib iyo liibaan baad ku gaadhi lahayd oo xilkaasaad ku mari lahayd soomaaliyana soomaali bay noqon lahayd markaad u baahatana sida jabuuti hiil walaal one weeyaane somalilan waxay noqon lahayd hiil walaal two maxaa kuu diiday intaad leedahay talla ayaa daarooda soomaaliyeed noqotay dir iyo daarood taladaadii halkaasay maraysaaye oo dir iyo daarood bay noqotay bal waxaad ku dambayso iyo waxay soomaaliya ku dambayso nin jiroo joogaa uu ka sheekayn doona waxaan aada uga xumahay hablii reer sanaag ee labada ahaa ee intaa qabateen aad disheen midiyaa gelgeliseen aad baan uga xumahay sanaag baan doonayaa oo kicinayaa haddana dumarkoodii baan laynayaa midiya gelinayaa maan garan sheekada waxaan leeyahay oo kale oon u tallaabayaa nimanka ka hadlaya dir waan soo dhaweynayaa hadalkooda waan tahniyadeynayaa dirow baarkay reerka yaallaa muxuu ku tegi dirow haddaad is ogaatay halkaad joogtaa waa caasimadaadii tii labaadna waa Hargeysa dirow caasimadaadii labaad waa Hargeysa soomaali la kala tuuriye dirow calankaaga taago السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.